kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta oo uga hadli doona arrimo la xiriira maalmaha si ay u socoteen social media waxaa ka muuqday ama ka soo muuqday sheekad arrimaha guurka ka hadlaysay. sheekadaas markii ugu horeysay waxay dhahday ama ay dadku ku dhiirigelisay qodobkan aad u jeedaan oo ay ka hadlaysa dhanka guurka iyadoo dhahaysa ha guursanina nin faqiir ah. bal waxaan rabnaa inaan reaction ka bixino qaabkay dhahaysay iyo sidoo kale barnaamij video ee xalay laga soo duubay oo aydan dhahaysa ha guursanina dadka jaadka cuna. bal ila eeg videogii hore ay soo duubtay ama laga soo duubay sheekada qaabkan ay dhahaysay xalay maxay tiri marka xalay waxay tiri sidoo kale ha guursanina ninka waxa loo yaqaan jaadka cuna sidoo kale mashaqaystaha barnaamijkan ay dhahaysa maamada ama ay ka sheekeynaysa aan rabnaa inaan dul istaagno nin khaylo jaad cuna haddii aan dul istaagno videogii hore horta markii la dhahayo qof faqiir ha guursanina horta taas dadka social media dood badan ay ka keeneen afkaar kala duwan ay ka hadleen markii la dhahayo dadka macnaha markii la isguursado kadib waxa laga yaabaa inuu ilaahay hanta siiyo inuu ilaahay isbedel u keeno. waxaa kaloo jirta oo dadka soo bandhigayeen oo waxyaabaha cajiibka aan ku arko waxaa kamid ah commentiyada dadka ay soo bixinayaan. waxaa kamid ah in aayad qur'aan ah oo ka hadlaysa in dadka faqiiriinta iyo dadka waxba haysanin la isu guuriyo si ilaahay hadhowtay mataqaana ayaga ilaahay asaga mataqaana wax irsaaqaya aayadii ay mataqaana screenshot inay kasoo qaadeen ay kusoo bandhigayaan. taas kadib maamadii waxaa laga kensiyey inay jawaab ka bixisa. haddana xalay videogan aan idin soo bandhigay ee uga hadlaysa arrimaha nin mataqaana jaadka cunaha guursanina waxaana macnaha taas hadda dambe ee xalay ay soo bandhigtay waa arrin sax ah la dhihi karaa sababtoo ah qof muqayyid ah ama qof mataqaana waxyaabo mataqaana aan samayn karin oo mataqaana qofka asaga laftirkii isbedel weyn ku keeni kara. macnaha qofkan waxaa laga yaabaa inuu mataqaana hadhow keeni karin in hadhow isku dhac ka yimaado in hadhow tii mataqaana furiin ka yimaado waa dhici kartaa. tan dambe way saxantaa la dhihi karaa laakiin tii hore kolley dad badan ka hadlay commentiyada badan oo meesha idiin soo bandhigi doono aayadda xitaa screenshotkay ka soo qaadeen. marka waxaan dhihi karnaa dhankaas maamada ay ka hadashay arrimaha labada jeer waxay dhalisay falcelin aad u sarreysa. marka kolley videogeena maanta aan ku qaada dhignay arrintan intaas ayuu ku saabsanaa. marka kolley waa markii ugu horeysay oo arrimahan reaction ka bixina. haddii ay jirta inaan sii kordhino arrimo noocan camal oo social media haysta arrimaha bulshada inaan kasii hadalno haddii aad mataqaana aad nagu taageeraysa waxaan leenahay dhanka commentiga ayaad hadda ka dambe mataqaana noo soo bandhigaysaa wixii dhiirigelina barta youtube-keena nagala socotaa sidoo kale waxaa nagala socotay barta facebook aan ku leenahay. inta aan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.